يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa maalintii saddexaad sabti axad isniin waa maanta walaalkeen maxamed waa u jeedaan waxaa ka muuqata kabasho fiican si fiican u soo kabtay maxamed xaaladaada maanta ka waran aad u fiican sheekh ana boqolkiiba boqol alxamdulillah aad u fiican boqolkiiba boqol ما شاء الله walaalkeen maxamed saddex bariya ku jirta maalin saddexaad aad u fiican alxamdulillah ما شاء الله walaalaha dhammaan sidaan ku ballanay update-keena ay soo siino xaaladiisa qaliinka maalin ka dambayso ay ka soo fiicnaanayso maalintii koowaad maalintii labaad maanta waa maalintii saddexaad waaye maanta waxay noo sheegeen dhakhaatiirta in ilaa caawa ay fiirinayaan haddii uu xaalkiisa fiicnaado berri uu ka bixi doono isbitaalka haddii kale hal maalin oo kale oo kastar ay ku dari doonaan daawooyinkii qaar ay u kala bedeleen kuwa hore uu isticmaalay hadda kuwa cusub loo bilaabay marka xaaladiisa maasha Allah waaye ducadiina ilaaha aqbalay kaalmadiina si fiican oo maasha Allah oo niyad ku jirta oo la soo baxdeen walaalkiin waa u jeedaan isbedelkiisa iyo caafimaadkiisa khayr Allah idin siiyo mar kale waa walaalkiin xasan goodax oo ku soo hadlaya isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho halkaas uu ku jiro walaalkeen Maxamed khayr idin rajaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ